madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu ka dhawaajiyay eray qoysi gelinaysa dadka Somaliland oo ah in wadamada Sacuudiga, Masar iyo Turkiga uu diray qoraal la mid ah kii uu diray Netanyahu 26 December 2025 laguna aqoonsaday maamulkiisa sida uu sheegay. bal aynu daawano qayb ka mid ah Cabdiraxmaan Cirro oo arintaasi qiraya. waraaqdan uu qoray Netanyahu mid la mid ah baan u qoray boqorka Sacuudiga, waan u qoray madaxweynaha Masar, aan u qoray Erdogan, midna ima soo jawaabin. rabitaanka shacbigayga waxa ka soo jawaabay dowladda Israa'iil waana mahadnaqaynaa. waa tahay waa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro sida uu sheegay oo aad maqlaysayna waxa uu ka hadlayay arinta ku aadan ictiraafka Somaliland iyo sida ay dalal badan ugu waayeen in ay aqoonsadaan kuna raacaan dhanka iyo Israa'iil. madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu dab kulul ku shubay arinta siyaasadeed ee geeska Afrika isagoo sheegay in wadamo fara badan ay ugu ballan baxeen. warbaahinta ka howlgasha dhanka Israa'iil waxay sheegtay Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo wadamo kale in culays xoogan ay saareen dhanka Somaliland iyadoona talaabada halka ay saanqaadka ka bilaabeen darteedna arintaas ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladahaasi iyagoona ku waramay in xaaladdu aanay xilligan wanaagsaneyn marka la eego dhanka Somaliland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday talaabooyin diblomaasiyadeed iyadoona dowladdu ay sheegtay in ay talaabooyinkaasi ay uga hortagtay isku dayo walba oo la xiriira dhanka iyo aqoonsi la siiyo maamulka Somaliland. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro iyo xubno kala duwan oo ka tirsan maamulkiisaba ay isku dayeen in ay safar ku baxaan hay'ashee arrimahaasi laga hor istaagay. waxaa soo baxaya warar sheegaya in safarka qarsoodiga Cabdiraxmaan Cirro saacadii la soo dhaafay warbaahinta ay aad u hadlaysay laakiin ugu dambeyn arintaas ay guuldareysatay. waxaana la soo wariyay in uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa walow aanay jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo jira. geesta kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo dhaweyso odayaal dhaqameed ka imaanaya dhanka iyo Addis Ababa kuwaas oo Hargeysa ka ama baxay, waxaana ujeedku yahay in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho isla markaana la didbo maamulka Awdal State oo dowladda federaalka Soomaaliya ay gadaal ka riixayso. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo.